waayo miisaaniyaddani waa la ansixiyey maanta saad aragtaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa labada guddi ee ka soo shaqeeyay labada gole iyo labada guddoon ee labada gole iyo xildhibaanada sharafta leh si fiican bay u martay haddaan ka yar sheekeeyo marxaladay soo martay marxalada adag bay soo martay 2 bilood bishii Oktoobar bishii tobnaad soddonkeedii baan soo gudbinay 2 bilood ayaa la soo haystay aan wada haysanay gidigayo shaqo badan baa soo gashay ugu dambeyntii markaa waa la isla gartay maanta la ansixiyo maanta maalintii ugu dambeysay weeye marka really anigu aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye horta miisaanadii hore way ka yar badan tahay waxoogaa way ka badan tahay badnidaasina waxaa tilmaamaya dakhligii oo kordhaya iyo caawimadii adduunka oo soo kordhaysa inkastoo haddana markaad eegto wuxuuba ay wax isla wada yar yihiin oo ayna weli halkii waddan sideenan oo kale ah oo xajmigiisu intaa leegyahay oo dadkiisu intaa leegyahay miisaanadii loogu talagalay aanay ahayn haddana kolley iyo kolleyba waa koraysaa now waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye maanta labadii gole oo wada fadhiya labadii guddi oo wada fadhiya ayaa isla falgalay oo annaguna aan la falgalay marka wada hadallada iyo debate-ka laga galay waxa uu ahaa mid kii hore ka adagoo de laba group baa isku yimi maarta laba guddi baa isku yimi waxa kale oo jira de halkan markii la yimina maalintii ka horreysay baa halkan la isku yimi iyadoo oo labada gole wada fadhiyaan ayaguna waxay sii badinaysaa de halkii 130 halkan laga doonayay 130 iyo 40 dhinacayna ka yimid dadkii baa sii batay fikradihii la haystay baa sii batay sidaa daraaddeed way sii xoogaysatay budgetku miisaaniyaddu way sii xoogaysatay talooyinkii iyo tilmaamihii lana siinayna way sii bateen markaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay siday maanta u soo gabagabeeyeen miisaaniyaddu de horta waxa weeye waa kharash iyo dakhli soo gala dakhligu waxa uu qaybsan yahay inagu gudaha inaga soo gala iyo ka adduunka inooga yimaada wuxuu qaybsan yahay mid kab miisaaniyadeeda oo miisaaniyadda lagu soo daro iyo mid mashruucaysan oo mashruuca kharashka iyo muxuu iyo dakhliga ay wada socdaan marka quwadda runtii waxay saaraysaa waxa weeye habka dawladnimada wixii kharashkii ku bixi lahaa ciidamada wixii ku bixi lahaa oo aad ogtahay 720 milyan ay ku kordheen 720 ka soo noqonaya ciidamada intii loo kordhiyay noqonaysa 12 bilood ee nagu soo socda waxa kale wuxuuna noqonayaan socodsiinta hawlaha dawladdu leedahay weli maynaan gaarin meel aan nidhaahno wadooyin baan samaynaynaayo ciidan baan waxaan dhisaynaa muxuu iskuulaan dhisaynaa taa lafteeda lacaga ugu jiro kuwii hore ka badan caafimaadka lacaga intii hore ka badan baa ugu jira taaliimaha iyo culumaha tii ka badan baa ugu jirta laakiin haddana weli halkaan doonaynay maynaan gaadhin xaggaasaan usii durkaynaa deynta marka laynaga cafiye hadhow insha allah dib baan ugu soo noqon doonaa markaasaan arki doonaa wax dhismo inay meesha soo galaan